السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل تونكسن أصحابي بالكستو نجدا ورسان كسو دوادا متكلي أو كمدا قصوين كعجيب كأ آنو إدين سو قد بنو حل يدانو كلي قصوين كعجائب كأ دونيدا أينو كنور نحي كدعي هذا قصة waxay dhacday sanadkii 1986 waxay ka dhacday dalka Suuriya. wiil dhalinyaro ahaa xilligaas ayaa wuxuu ka qalin jibiyay dugsiga sare wuxuuna ka soo jeeday deegaanka la yiraahdo Xalab ee dalka Suuriya. magaciisu wuxuu ahaa Ibrahim waa sheekada arinta ay ku saabsantay حقي بيدي أيها الإرادة شكذا معناه حقي قعنتي ذو كجرا قعنتي ذا كو أرسنا وكرواي دم بيوين والله قاي أيو دونيا إنو قعنتي سكو أرسلو هذا هو قصة يابلة أو عجيبة أو قصة ينكا دعي كمدا إبراهيم دوكسي قصريو دمي حلقة أمريكا وحقاد له حيسي dadku inay ku biiraan askarta sidiisa kale caa'ilad ama qoyska iyo reerka uu ka soo jeeday dad iska ladan ahaayeen laakiin isagu wuxuu iska goostay inuu askarta galo sababta dhalinyaradu waqtiga askarta u doonayeen inay u galaan waxay ahayd 1976 ilaa 2005 ciidamada Suuriya ayaa waxay deganaayeen oo amniga Lubnaan ay gacanta ku hayeen marka ciidanka Suuriya ayaa Lubnaan haystayba marka askartan ciyaalkan dhalinyarada Suuriyaanka halka inay tagaan kusoo baashaalaan maaragtay kusoo dhalinyareeyaan meeshaas askartaas sheekooyinka looga keenayo waxyaabahaas iska rabaan Lubnaan marka waa meel aan caadi ahayn laakiin Suuriya si ay u xirxiran tahay marka halkaas marka ayaga dhalinyaradii oo dhan askartaas la qortaa reerkiisu waxay yiraahdeen ma iska joogtid markaas gabar adeerkiis dhalay ayaa loo doonay horma iska shaqaysatay hadii xataa wax barashada rabin ma yuu dhaxliga askartaana raba dhalinyaradii kale saaxiibadiisa ahayd iyo kuwii kale oo dhan askarta galay marka waa reer Xalab asaga deegaanka Xalab la yiraahdo ku soo jeeda waa sunniyiinta meesha degan ninkii Ibrahim ahaa markiiba Suuriya la geeyay tababarkii markuu dhamaystay Suuriya loo qaaday Suuriya marka ciidankii lagu daray oo maaragtay uu ka mid noqday ayaa waxa joogay nin sarkaala oo dhib badan saraakiishu marka way kala yihiin sarkaal aan diin iyo waxa kan shaqo ku lahayn oo dhib badan xukuma ninkii marka meeshu tagay adiga maxaa ahayd aniga halkaan la ii soo bedelay askari cusub aan ahay waxaan ka imid deegaanka Xalab Xalaba ka timid dhulkii dadkii hantida lahaa dadkii hodanka ahaa sideedana ahlu Xalab waqtiyadaas dad hanti leh u badnaayeen oo dhaqaale haysta Suuriyaanka marka ay u dhaay hadii reerku dhaqaale leeyahay maxaa ka galay reerka iyo askarnimadeed ninkii wuxuu bilaabay ninkan inuu hantado uu yiraahdo lacaga laga rabaa ina lacag reerkaaga nooga dalaftid waay oo maxaan u dalbayaa wiilkana wiil iska caadi waay ninka wuu dhibay marka xabsi uu galiyaa wuu ciqaabaa wuu dhibaa intaas inuu handado rabaa uu yiraahdo lacag reerkaagu hodan waaye lacag ka soo qaad marka askarta Suuriyaanka meesha jooga Mooryaannimo ku jooga sidoodaba Lubnaaneeskani waxaan iska dhacaan xoog ku haystaan waaniga wuxuu ninkii marka si uu lacag uga qaado waay maalin maalmaha kamida marka afar kamida dadka caadiga oo reer Suuriya oo Lubnaan xataa Suuriyaanka caadiga way tagayaan
suuriyaankaas oo xalab ka soo jeeda ayaa tuuganimo lagu soo qabtay shaqo isku balaa ninkan waa askari kuwana waa shacabka tuuganimo lagu soo qabtay ninkaas sargaalkaa loo sheegay afartan nin waxaasay dhaceen afartii oo garaacay inay idin sii daaya marabtiin haa yidhaahdeen nin askariya oo ibraahim hebel ilaa ahlu xalab ah ayaa hawshan nagula jiray dhah nimankii de waa la garaacaya mugta waayay iska yidhaahdeen meeshaa la yimid askartii kale nimankii waxay yidhahdeen ninkaasaa annaga hawshaa nagula jiray hala soo qabtaa saraakiishii sare ninkaa hala soo qabta walaa xawla walaa quwata war aniga waxaan shaqo ku mariyaa waa la garaacaya wuxuu ka shaqeeyay haddana xabsi adduunku ka qayliyey oo waxaa jira tadamur magaalo la yidhaahdo oo suuriya ku yaala oo hay-adaha xuquuqda aadanaha oo dhan ka qayliyeen in xabsigaas ninkan lagu xiro ka shaqeeyay sarkaalka dambi kale uu ka gala male inuu baaduur rabaa bas baad haddaadan lacag isiinayn ehelkaaga lacag haystaan nooga dalbayn waa ku ciqaaba cunugina miinka uu istaagay waxaan dalbaa maloo yidhi baxarkii u geliyay marka kadib ninkii waxaa la soo kaxayay madiinatu tadamur magaalo la yidhaahdo oo xabsiga ugu dhibaatada badan oo gaangistarada waaweyn ay ku xaraysan yihiin allagii reerkiisii marka waxay maqleen wiilkiini tuuguu noqday maqleen dad shacaboo reer lubnaan asagoo dhacaya askartii qabatay 2 sanaa lagu xukumay tadamuraa la geeyay horta odagii adeerkiisa oo gabadha uga dalbareed wuxuu yidhi ninkan akhlaaq maba leh asagoo ha bixin aan leenahay askaraan rabaa ma dhac waxaanu rabay gabadhaydii ma siina yidhi ninkaas bas waa reerkiisiina way ku xanaaqeenoo labadiisa sana ha cabaaliyo xabsiga marka sanadka ugu horeeyo beerka lagaa tumaa waa lagu garaaca sanadka dambe jugtaa la qabsanaya adigana kuwii cusuboo soo galaa jugta ka gelin xabsi la isku dhaxariisanaa baa ninkaan 2 sano soo dhammaystay ibraahimkii ma aha ninkaan markuu soo baxa alwaxshi asagoo soo baxay waxshi waa taqaani dhowr sheekaa kusoo qaadan waa nin aan naxayn asagoo soo baxay sidii loo garaacayay asaguna wax u garaacayay jugta la isaga gelinayo meesha ayuu soo baxay ninkan marka 2 sano ee uu xirnaa hal habeen hurdo fiican ma hortid ciilka uu u qabo sargaalkaas markuu soo laabtay wuxuu ka walwalsanaa askarta ma ku soo noqonaysid in la yidhaah uu sarkaalka arki waayo waxaa la yidhi marka waa ku laabanaya saaxib askarta fasax yar reerkaaga soo salaan kadibna lubnaan ku noqo meesha tag ciidankaaga ka mid noqo ninkan waa farxay ninkan wuxuu ciil u qabaa sarkaalkii baadda ka qaadayo oo baadaan kaa rabaa lahaa oo dhibaatadan qoorta u geliyey oo waxaanoo dhan ku sameeyey u dhaarsayay ninkana ninkii oo ibraahimkii u yaqaanay ma ibraahimul waxshi soo baxay oo bahal ahaa soo baxay reerkii u tegay dadkii oo dhan waxay leeyihiin tuugaa noqotay kanaa noqotay ninkii adeerkiisa ahaa is arkeen gabadhaydii waa kaala laabtay tuuganimaa keentay gabadhii waxay tiri aniga nin tuuga ma rabo ninkaa baasha uu sii xanaaqay dadkan wuxuu u sheegayay dhan maleesay war aniga waa laygu tacdiyey midna male ma hubtaanuu yidhi inaan tuugahay haa okay adinkaa ogaan doona xaqiiqadu iska leeyay ninkan marka wuu soo baxay lubnaan u imaaday askartiisiioo ku beeray xafiiskii sargaalka uu ku ogaa uu imaaday wuu labisan yahay wax huwa ma wata laakiin hadduu shaqada soo galay sargaal kaluu meesha ugu yimi taliya waa ku salaamahay aawayuu dhahay sarkaalkii hebel ahaa sarkaalkii 2 wiig oo fasax u qaato
usheeguu dhahay aadaa ugu xiisay sarkaalkaas saaxiibkay waaye xabsi soo kama jira adiga haa xabsiga waa ka soo baxeen waa soo dhammaystay fariinteeda iga gaarsiiyeen wuxuu yidhi ibraahim aaduu kugu xiisay inuu ku arkana muhiimay u tahay ninkaan wax ka dhexeeya mooga sarkaalkan kale okay u dhaha shaqadaada qabso ninkaan habeenkii waardiyaha lagu qoraayuu gaadayaa marka xerada waardiyaha laysku qoraa ninkaan waardiyaha lagu qoray qorigiisu cabbaystay maqaasiinkii u dhuuntay dhowr qasnadoodoo rasaasuu la baxay bambooyinuu la baxay bistooladuu la baxay waa gooye siduu ku gooyaba dhag waa gooyaa layidhi askartii aawo ibraahim aawo ibraahim male ibraahim waa maqay waa la raadiyey sargaalkii soo laabtay 2 wiig kadib kii u yimid wuxuu yidhi ninka ibraahim la yidhaahdo aa ii yimid ibraahimka kii ahlu xalabka ahaa haye reer xalab ahaa oo xabsigii maka soo dhammaystay muxuu yidhi aadaan ugu xiisay waa u baahnaay inaan mar arku dhahay waa naxay ninkaan muxuuse sameeyey moogtaa layidhi maya habeenkii ugu horreeyay waardiyaha lagu qoray qorigii iyo rasaas kale iyo wax badanuu la gooyay ilaa hadda askartii lubnaana laga dhex raadinayo lubnaana jabalee leedahayoo meel oo maaragtay kooxo iyo waxbaa loo deganyaa sunni meeluu joogaa kirishtaan meeluu joogaa shiica meelay joogtaa meeloo iska allow sahla iska tahay lubnaanta meeshaa tagta qoladaa joogtaa iskala noolaane ninkaa qorigiisu qaatay ninkii ma soo baxay waa ku raadinaya ma dhahay ninkan jaa wuxuu sawirtay ninkan inuu qoriga isaga u qaatay wuxuu ku sameeyuu ogyahay dhibaataduu u geystuu ogyahay ninkii meelu ku harsadu waayey aniga ninkaas qoriga wuxuu qaatay inuu idulaskii sarkaalka wuxuu leeyahay muxuu kuu dilaa aniga wallaahi bilaahi ninkaas aniga ma aqaan muxuu iga rabaa aniga war maxaa ka hadlaysa ninka ninkiisa xero kaloo u badashay xeradii wuu ka cararay maalin kasta wuxuu waraystaa ibraahim mala qabtay ibraahim ninkaan beeluu ka arkuu raadinaya maalin maalmaha ka mida wuxuu la kulmay qaar ka mid a askartii ay isku dhibowga ahaayeen oo suuriya jooga markaasuu u yimid wuxuu yidhi dhagaysta hore ibraahim waa lagu raadinaya qoriga la goos qoriga waa kanaa qorigiisu wataa qasnadihiisu wataa bambooyinkiisaa ka raaraca wax uu ka naxaa male noloshiisoo dhan aa soo gabagabeeyey ninkaasoo uga dhegata wax kale uga dhegataa male wuxuu yidhi wariyaada dhagaysta wallaahi bilaahi tallaahi yuu yidhi midkiin 3 waa marka midkiin hadduu aniga arinkayga kashifo ehelkiisa suuriya joogaan qoorta ka jaraawi maya annaga maxaa naga rabtaa ay dhaheen annaga maana dile maxaa naga rabtaa ehelkeena maxaa ka rabtaa hal arrinaa idinka rabaa haye ninkaasaa raadinaya inaan dilaan rabaa haye waxaana ogahay inaa meelaha uu joogo adika ogaa kartiin xerada uu mar walba xerada uu aadayo iyo guryaha isku babedelayo maadaama adiko aan meesha joogtaan aniga xog badan ma ka heli karo inaa ila shaqaysaanaan haddaa been ii sheegtaan wuxuu adikana waa idin dilaa ehelkiinana suuriya inta u tagaa dilaa nimanka waa cabsadeen ninka marka ninkii ay yaqaaneen ma ah ibraahimkii daacadda ahaa oo miskiinka ahaa ma ah ibraahimul waxshiyaa yimid ibraahim bahal ah oo aan naxayn wejigiisa maba qubaysan waayadaan ciilka uu qaba dartiis durkaasuu ku jiraa waayahay ballan waay xogta waa ku soo siinaynaa waa kaas waa la ballamay meesha xogta lagu kala qaadanayo wixii dhanaa lagu kala qaatay ninkii in la raadinaa lagu daba jiro waa ogyahay wuxuu geystana waa ogyahay marba xaafaduu tagaa habeenba xaafad uu ku hoydaa
caaw xaafadan habeenkal xaafadan xeradan asaga dhan cabsi adduuna ku dhacday. maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi caawa wuxuu la caweynayaa uu qamri la cabayaa sargaalkii kale hebel ahaa gurigiisii ku ballameen. gurigaasuu caawa ku dhuumanayaa. 3 askari oo waardiye ahna wuu wataa, sargaalkana 2 askariyaa u joogto, 5 askari waayo. 5 askariyaa joogto gurigaasuuna imaanaa aday ku taallaa saa yeelaysid. markaasuu wuxuu yidhi warkaas ma hubtaan? haa, gurigaasu caawa ku qoray waana cabayaana liin. meesha marka saraakiishooda way cabaan. nimankan dee muslim fiican xataa ma aha. waxaa la yidhahdaa calawiyiin iyo waxaasi waa qolo shiica sii fogaatay iyo qamriga waxba kama ameys askartaas. marka masaasaa uu yidhi haa waaya ninkan waa soo gaagaatamay albaabka ayuu soo garaacay. askarigaa ka furay. askarigu hub ma wato, marka dhafoorku wuxuu ka saaray baastoolad. kuwii kale askartii kale meeshaanay ku jiraan, qaarna way jiifaan, qaarna ninkii albaabka jooga bastoolad amar ka saaray. markaasuu wuxuu yidhi dhagayso, wallaahi haddaad ii dhahdid madaxaan ku qaadaya. war maxaa ii dilaysaa? war maxaa garabta? aamusoo dhan sarkaal hebel meeshuu ku jiro igee, anaa ku geenayo dhahay dilaysaa xago, mana qaylinayo. inay disho ma rabo, inay taabato ma rabo. ninkii waa isku dhexyaacayo. aamusoo dhan ninkii wuxuu leeyahay haddaan guursaday, wallaahi hadda dhowaa guursaday, aroosa ka soo baxa, ha i dilin. meeshaa rabta anaa ku keenayo. aroosa hadda ka soo baxa, aroos cusubaa. warniba adduunyada hadda ii bilaabatay. war aamusoo dhahay adduunyadaada maan. ninkaas ii gee, ani kuma rabadiye. keenu dhahay soo baxa. jeg si u soo waday meeshii barandada ahayd qaybtii u go-need. wuxuu yidhi qaybtaana ku jiraa. albaabkii u soo riixay, uu soo galay qol meeshaanay marka fadhiyaanoo ay ku cabayaan. albaabka u xiran, marka ninkan waa fulay. albaabku u xirtay, albaabku soo garaacay. yaa waaye dheh, aniga waaye yaa daabit. adiga yaa waaye, aniga waaye fur. ninkii markaas horta waaga ku beriyay. wuxuu yidhi mataqaan wallaahi alcadiim ibraahim waayo. codkiisaan fahmaa. ibraahim kan la raadinayo xataa suuriya inuu aado loo malaynayo goostay ma warniyo meesha ma iman waa baxani. war qori meeshaan uu yaallaa. ninka hadduu bato qoriga wataa iska dhicidu dhahay. ninka sarkaalka kala dhahaa. marka waa cabsiyin. wallaahi alcadiim inaan ninkaas u joogsanaynu dhahay. dariishada marka guriga dhexdiisa ku dhex taalaa bere iyo waxba male. dariishadii inta furay uu dariishadii ka booday. dhulka marka xoogaa u jirtaa dariishada digtuu maqlay iyo jaqafti. isla markii uu soo laabtay guriguu la soo wareegay. ninkii sii cararaa oo albaabkii ganjeelkii uu ka soo galay kasii baxaa u ark. ganjeelka waa furay. kii kale meeshaan u fadhiyaa, madaxuu saas u haystaa, gacmaha u saaran. askarigii barka hore laga dhaxsaday aroosaa ku jiraa lahaa waa la ag maray. kii oo raacdaystay. barxadda banaanka layskula soo baxay. dariiqiyaa laysku cayrsanaa. xabaduu marka kor ugu ridaa. wuxuu leeyahy joogso. kuwii kale oo guriga ku jiray iyo sargaalkii isaguna wuu soo baxay. ciidanaa la wacay. ninkan dee wuu cabsanaa, meel dheer ma tegi karo moogta, inkastoo naftuna waday. inta dul yimid isagoo kufay. markuu kufo inta dul yimid wuxuu yidhi xaqii biyadii. waa sheekada magaceeda. xaqaygu gacantaydu ku jiraa. waa kaa aarsanaa maad. wallaahi alcadiim wuxuu yidhi xaqa aa iga gashay mid caadiya maaha. waa i dulmisu dhahay. 9 xabadood ayuu ku furay ninkii.
jirkiisoo dhan wuu kala jarjaray babaas suu ugu waday qasnadaanaa dhammaata waa u gashadaa midaanaa dhammaata waa u gashadaa midii ugu dambaysay markuu ku dhammaynaya askarta dhinacyada qori uga qabteen istaaggadhaysdhib gacmaha kortaag gacmuhu waa isdhiibay qoriguu dhigay wuxuu dhanuu dhigay askartii waa kaxaya maxkamaddii ciidanka halkii ninkii maxkamaddii ala soo saaray ibraahim wixii dhacay u sheegay waxaa rabtaan igu sameeyey ninkaa dulmiga uu ii geystay xabsiga dhibaatada la iigu geysto sida la ii garaacay sida la iigu xadgudbay waxaasoo dulmi asaa ii geysto hadda waa nafisoy idila ama iska kaaydaaya adinkeedi jirtaa maxkamaddii ciidamada waxay ku xukuntay dil toogashaa sharciga marka suuriya marka wuxuu yahay maxkamadda madaniga loo wareejiraa marka hadday ku raacdo waa lagu tooganaa maxkamaddii madaniga ahayd oo rayidkaa loo gudbiyey ayadiina dil toogashaa ku xukuntay fursad marka waxaa jirtay askari dila diyo marka hore in ehelka la weydiiyo haddii diyada laga bixiyo xukunka loo qafiifiyo xogaa askartu macno camal ay ka lahayd meesha oo macnaha waa la qadarinayay ehelkiisa lacagay haysteen marka ibraahim sheekadiyaa loo sheegay siday wax u dhaceen diyadii annagaa ka bixinaynay dheh 4 milyan iyo bar oo lacagtooda xilligaasay sheegteen oo lacag aad u fara badan oo dollar camala lacagtoodii waa la siiyey maxaa la sameynaa marka ninkii laba sii daynayo dilkii laga daynaa waxaa lagu xukumaa xabsi daa'in marka ay xukun military tahay waa 31 sano sida oo sharcigoodu markaas ahaa haddii xukunka u dambeeyay madaniga ah uu ahay madaniga laga soo qaadanaa waa 25 sano ayeen waa 25 sano marka dadkii marka waxay yiraahdeen at least 25 sano kadib xataa hashka noolaado diyadii laga bixiyay reerka lacag iska laa diyadii laga bixiyay ninkii waxaa dib loogu soo celiyay xabsigii tadamur asagoo markan xabsi daa'im ku xukuman 25 sano halkii ala keen xabsigii ninkan atooro ka noqday waa laga baqayaa 2015 ayay qisadiisu soo gaartay isagoo xabsiga weli ku jira ayaa xabsigii waxaa weeraray kooxda daacish ayaa weerartay xabsiga ciidamadii suuriya xabsiga waa ka carareen daacishtii u daadatay maxaabiistii oo dhan ooday ka qaadeen waa la kala cararay ninkii ibraahim ahaa wuu soo cararay yaan mar dambe xabsi lagu celinoo siray daacish kumuusan biirin meel kale ma gelin wuxuu u tahriibuu yidhi markii u dambaysay wadamada reer galbeedku soo aaday meeshaasuu iska soo aaday ilaa hadda marka meel gooniya uu ku sugan yahay marka lama yaqaano laakiin ibraahim maaragtay sheekadiisa waxay lubnaan askartii suuriya joogtay oo dhan ayaa kilgishaa la leeyahay marka ninkanu nin caadiya ma ahayn uu ka dhabeeyey xaqii biyadii asagoo dhahayo xabsiga ka soo baxay ilaa maalinkii ninka uu dilayna wuxuu lahaa xaqii biyadii xaqaygu gacantayda ku jiraa gacantayda ku aargudanaa waay Soomaaliga gacantayda kaaga aarsanaa cid kale kuma maray maqli jirin ninka marka dulmiga weyn oo lagu sameeyay sidaas ayuu marka ku aargutay haddaba qisadeena toddobaadkan cajaa'ibka ahayd inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa fakarkiina iyo aragtidiina waa noo muhiim asxaab inta aan mar kale iyo qiso kale oo cajiiba ku kulmi doono meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo